laba sano ka hor gabar uu soo aasay ayaa mar kale dib ugu soo laabatay oo guriga u soo garaacday. gabadhaynii dhimatay 2 sano ka hor oo anigan dhinaceeda aan dhulka dhigay oo qafriga geeyay ilaahay amarkiis shalay albaabka noo soo garaacday. Waxaa Qaloocow oo ka sheekeynaya in gabar uu dhinaceeda dhulka soo dhigay oo qubuuraha uu geeyay mar kale ay soo noolaatay. Haddaba sidee ku dhacday? maxaa suurageliyay inay dib u soo laabato? garaafa kuma taalo waa sideedii waa ayadiyo tabti ah. Xaaji Qaloocow ninkan la yiraahdo oo u sheekeeyay mid ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Muqdisho ku sugan ayaa sheegay in gabadhan 2 sano ka hor uu aasay, laakiin markay aasneed maalmo un kadib waxa halkaas tagay ama qubuuraha tagay dad kale ama ehel kale oo iyagana qof kale ay ka geeriyootay. waxa ay maqleen shanqar misna jabaq meel dheer ah, waxaana ay raaceen halka ay tahay. ugu dambeynna waa ay heleen oo waxa ay faageen qabriga ay ku jirtay gabadhii oo waxay soo bixiyeen si kala ah laakiin nool. xitaa iyagu waxay la noqotay mid la yaab leh. waa ay soo badeen gabadhii oo guri ayay geeyeen. ugu dambeynna xaaladeeda caafimaad ayay ka shaqeeyeen. xoogaa markii ay soo hagaagtay kadib waxa ay aaday wadanka Yemen si ay u gaarto wadanka Sacuudiga. iyada oo bilooyin halkaas joogtay kadib waxa ay gashay wadanka Sacuudiga oo ahaa hadafkeedii ugu weynaa. halkaas ayay muddo ka shaqeynaysay, laakiin ehelka gabadha ay ka geeriyootay waxa soo gaaray fariimo kala duwan oo ah gabadhooda inay nooshahay sidoo kalena ay saraan kaga sidaan. laakiin qof dhintay oo aad soo aastay inaad fariintiisa aqbashaa dadka Soomaaliyeed inta badan waxay ku tahay la yaab iyo fajac. loogamana baran in qof geeriyooday mar kale dib loo soo celiyo awood alle mooyee. haddaba sheekada gabadhan oo isa soo daba dhaceysay maalmihii la soo dhaafay ayaa ugu dambeyn waxa la tilmaamay in wiil ka mid ahaa kuwa Sacuudiga ka yimid uu ehelka soo wargeliyay oo ah in gabadhooda ay nooshahay fariina uu kaga sigo, laakiin waa ay ka aqbali waayeen. ugu dambeyn iyadii ayaa soo caga dhigatay Soomaaliya oo gurigii ay ku nooleed ayayna markaasi tagtay oo albaabka ay u garaacday ehelkii guriga ku sugnaa oo qaraabadeeda ahaa. markii ay arkeen ehelku waxa ay noqdeen qaar carara iyo qaar halkaasi naxdin markaasi la dhaqaaqi waayay. Xaaji Qaloocow waxa uu sheegay in gabadhiisa aysan waxba iska bedelin oo sideedii ay ku soo laabatay, isla markaana uu la yaabay qisada ah in gabar uu muddo 2 sano ka hor uu aasay in mar kale dib ay u soo laabato. waxa ay ahayd xaas iyadoo uu waliba ninkeedii gabar kale uu guursaday oo xilligan xitaa Soomaaliya uu ka maqan yahay. ilmaheedii misna caruurteedina Soomaaliya ay ku sugan yihiin, laakiin qaab loogu sheego oo hooyadiin ayaa soo noolaatay loo yiraahdo ayaa la laayahay. Xaaji Qaloocow waxa uu sheegay in ilmaha markii ay qaangaaraan kadib loo sheegi doono haddii ninkeeda la wargeliyo oo la yiraahdo xaaskaadii geeriyootay ayaa dib u soo laabatayna oo xitaa isagu aamini doonin. haddaba ma kugu dhacday misna goobjoog uma noqotay qiso sidani oo kala ah? haddii ay jawaabtaadu tahay haa ama maya, qaybta hoose ee faallada ayaad noogu reebi kartaa.